xoolihii laba maalmood gudahood baa lagu iibsanayaa oo bilaabayaan imaaraadku inay iibsadaan hadii la yidhaaho sacuudigana way la hadlayaan waxaan rajeynaa iyaga yidhaah iyaguna way gudaheed in sheeg ka qaado magaranasaaye banka ka qaado haddii la yidhaaho basaboorkiina waa basaboor cusub la samayn doonaa oo basaboorta state of somaliland trade office ayaa la furayaa kuwa Taiwan oo ku leedahay adduunka ilaa intaan full recognition gelino wuxuu ku shaqeynayaa cover waa shaqadii wax qabanaya qonsulooyinka uu qabanaya iyo safaaradaha maantaan soo furnay haddana waan babaxinay alxamdulilah yani publicly hadda maanta loo sameynaya halkaasay noqonaysaa halkiinu marinay imaaraadka waxaan jecelnay si dhaqsanayn iyaguna xafiis ka furtaa Hargeysa insha allahu tacaala. waan gartay marka xoolaha imaaraadku qaadanaya ma xoolo nool baa mise waa xoolo lasoo qalo oo iyagoo hiliba markaa loo dhoofiyo? waa xoolo nool bay qaadanayaan hadii la yidhaaha waa jeeg furan insha allahu tacaala. waxaan filnaa inay ay baahidooda baahi kale hadii doonaan sii dhaafiyaan ay qaadan doonaan. waan gartay arrinta baasaboorkeed carabka ku dhufatay horta daan way ogolaan baasaboorkeen la ogolaado laakiin waxaa ogaatay in baasaboorkeen maaha baasaboor secure ah iyo baasaboorada adduunka ah ima ka socda maaha waa baasaboor cusub baa samayn doonaa waan la ogolaaday kon iminka joogana waa lagu sii dhaqmi doonaa hadii la yidhaaho markaa isaguna waa la ogolaaday wadan ahaan imaarad ahaan laakiin waxaan jeclay inuu wadamada khaliijka oo dhan ka shaqeyn doono biidnillahi kariim. waan gartay ka waran arrimaha laga hadlayay ciidamada ee la yidhi dowladda imaaraadka waxay tababaraysaa ciidamada somaliland. waxaa noo yimi ciidamada madaxdii ciidamada somaliland hadaa yimi amba booliis ha ahaadeen ammaanka amba ciidamada qarankiisa ha ahaadeen amba kuwa badda ha ahaadeen ama nabad sugidda ha ahaadeen inta oo yimaadeen wax contrabandkooda la kulmeen qorshe bay soo samaysteen in magaranasaayo amnigeega la adkeeyo xagga kale waxa weeye waxay naga siinayaan banki inflation waad aragtay sicir bararka sicir bararka waxay yimi madaxdii banka dhexaad timi iyaguna way joogaan way la kulmeen directorka banka iyo imaaraadka iyagana si banka loo adkeyn lahaa oo ban shaqeeya oo isna cusub oo magaranasa ilaaliya dhaqaalaha ayaa aysan la dhisiyaa lacag lagu shubo lagu ilaaliyo magaranasa sicir bararka. waan gartay marka lacagtaasi ma lacag mashaariic la gelinaya mise waa lacag kaasha oo dowladda imaaraadka ugu deeqaysa somaliland? mashaariicda waa la gelinayaa lacag kaashina waa la dhigayaa oo lagu ilaaliyo waxaa imanaya isbitaaladii isbitaal berbera iyo isbitaal magaranasa Hargeysa ayaa iyagan la imanayo injineerada imanaya wiil gudaheed lasoo dirayaa waxaa imanaya magaranasa masiirka energyga ayaa lala shiray tabarta isagoo qudadiisa magaranasa waxaa soo diraya wafdi somaliland oo yimaada oo iyaguna halkay wax ka qaban lahaayeen xagga tabarta soo saaminaya marka qalbi furan iyo gamcad furan ayay nagu qaabileen. waan gartay guddoomiye marka ka waran arrintii dekeda berbera weli alaan waxaa la sheegaya heshiiskaasi aan lagu wada kalsoonaan karin oo midmadow badani ku jiro guddoomiyihii xisbiga mucaaradka ucid baa tahay wafdiga madaxweynahana ka mid baa tahay arrimaha guntaada imika ugu jirtaa bal arrimaha maxaad kaga jawaabi lahaydeen midmadowga tirada badan ee la sheegayo ee ku gadaaman heshiiska berbera? waxa ku gadaa ma jiro waxa weeye horta in layska magaranaysa layska canaanta wax maaha waxa weeye qofku hadduu yahay qof calima hadduu leader yahay waa inuu farta saara oo yidhaha halkaasa laga haga laakiin guud ahaan madmadoodaa jira iyo waxaanu aragnaa inaan hadda qof laaqiya oo responsible ah oo magaranaysa dan guud arkaya ka fekeraya aanu arkeen heshiiskan heshiis in badan socday buu ahaa negotiationkiisu marka waa qof iska diidan magaranaysayo oo ku arkaya magaranaysa libinta uu arkaya libin xusbi amba libin shaksi inuu arkeen libin qaran oo qof kasta uu faa'iida ah waan ka feliyaa in dadka ay magaranaysa cadowga u hadlaan laakiin qof reer Soomaaliya aqluqadaas kuma ficna. laakiin lama soo bandhigin baa la yidhi oo waxay ku doodayaan heshiiskan marka horena qodobo heshiiska ka mid ah baarlamaanada laga ansixiyey labada gole imikana ilaa hadda cid aragtay heshiiska oo rasmiyi ma jirto. taasi waxay shiraaca dowladda hore ahayd waxa weeye adduunka waxa jira commissions baa jira investment commissions baa jira investment authority baa jira kuwaasaa shaqo ku leh wax baalan la soo dhigo maaha waa shirkad bilateral agreementka wadan baa lasoo dhigaa magaranaysa heshiisyada lasoo bandhigaa marka waa aqoon darada Soomaaliya ka taagan baa weeye